waa qoraxda oo galabkii baalka sii dhiganaysa, haweenna ku soo food saaray, adoo dhex taagan keemo ballaaran oo ishuwan. Naftaada ay hareeraysay cabsi aad ka qabto dugaagga duurjooga, masaska iyo dhuljiifta aan tirada lahayn, kaasoo mid walba ugaarsigiisa ku dhowrayo meeshaas. Waxaa intaasi kugu darsamay qudcur iyo mugdi aan xaddi lahayn, dayxiina ay daruuruhu qarsheen, iyadoo taasi kuu siyaadinayso cabsi iyo baqdin gilgilayo jirkaaga. Shanqarta geedaha iyo dhaqdhaqaaqa caleentuna naftaada ay u sawirayso in bahal adiga kuu soo gaatamayo. Waxaad si kees ah markiiba u maqashay cod nuxuus ah oo ka dhawaaqayo meel kaa ag dhow, kuna dhawaaqayo kelimado sixir u eg. Haddaad in yar u dhug yeelatay, aad u dhig raaricisay, waxaad ka maqashay kelmadahaasi magacaaga, taasoo argagax iyo jahwareer kugu riday, taasoo micnaheedu ay tahay dadka ku xasdaya, aan kuu ogoleen inaad guul gaarto, mar walbana ku hadimeynaya, godkaagana qodaya, dabino iyo qoolaaba kuu dhigaya. Waxay markaasi naftaadu filataa inay garab hesho iyo gargaar lixaad leh si ay dhagartaasi ugu baxsato, uguna badbaado sharka xaasidiinta iyo dhibwadayaasha hareereeyay. Waxaad xasuusatay islamarkiiba aalaha weyn ee ciddii garabsataa aanan hoogin. Adigoo indhaha kor u taagayo ayaad alameen gashay, waxaadna akhrisatay suuratul falaq, waxaadna ku celcelisay wamin sharri xaasidin idaa xasad. Waaba iyadoo markaasi waaga dilaacay, iftiinkiisuna maasheeyey meel walboo adiga ka ag dhow, ilaahayna kaa kaafiyey sharkii xaasidiinta iyo dhagar qabayaasha.